barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo wehelinayo maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad ayaa daahfuray dugsi boodhana oo laga hirgeliyay deegaanka Xayira kaas oo ay dhiseen qurba joogta u dhalatay deegaankaasi xaflad ballaaran oo loo qabtay xadhigga jarista dugsigaasi waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka iyo ka degmada Burco cuqaal waxgarad iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Aamina Daahir Maxamuud oo ku hadlaysay afka qurba joogta hirgelisay dugsigani waxaana ka warbixisay dhismayaasha uu ka kooban yahay dugsigani waxaan halkan imika isu soo taagay oo aan ka hadlayaa oo aan afkoodi ku hadlayaa haday yihiin qurba joogta ku kala maqal adduunka dacaladiisa iyo daafihiisa ku kala nool iyo gudida hadda ka dhisan gobolka Togdheer ee u dhashay deegaankan Xayira iskuulkan waxa maanta inoo furan 6 qol oo hurdo ah iyo 4 galaas oo ardaydu ka dhigato iyo waxa inoo furan hoolkii weynaa ee cuntada gaadh ma laha ka waxaan jeclaan lahayn wixii wax noo qabanaya ee message-kayagaas gaadho madaxweynuhu ugu horeeyo maxay tahay arrimaha gudaha ku xigo wasaaradda waxbarashada in alla intii gacan ka geysan karta annaguna waa dadaalaynaa in la dadaalo gudida qandaraasyada ee ah Nuux Maxamed Xuseen oo markii horena deegaanka ahaa runtii qofka ugu lafdhabarta maanta halka waxa laga qabtay ka muuqda lafdhabarta u ahayna waa Nuux Maxamed Xuseen geesta kale boqor Salebaan Cabdilaahi Gaacir ayaa ka mahad celiyay waxqabadka muuqda ee qurba joogta u dhalatay deegaankani ka hirgelisay deegaanka Xayira waxaanu bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka Ilaahay baa mahad leh waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo iskuulkan aynu iminka furay qurba joogta ka qayb qaadatay ee bilowday waan u mahadnaqay cidda iminka looga baahay inay ka qayb qaadatana dawladda kow ah wixii ishaya ama dawlad iyo mucaarad cid kastaba ha ahaado waan wada hadal iyo is-afgarasho hal lagu dhameeyo wixii khilaafaad jira inan iyo aabihii baa isqabta iyo wixii ka sii durugsan ilaa xaawiya aadan waa la isqabanayay laakiin hana la isu dulqaad shicibkuna amniga ha ilaaliyo halkan message-ka maanta halka laga dirayaa waxa uu ku socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maalinteedu halkan ku soo dhaweynay waxyaalo inaga ballan qaaday ay kow ka ahayd inuu boodhanka saaxiibkii Allah u naxariistay Mujaahid Cabdilaahi Cali Suufi uu dhameystiri doono hadii Ilaahay idmo maantana hadii Ilaahay dalkii uu haaneeday oo isagu hoggaanka u hayo waxaanu rajaynaynaa inuu dhameystiro hadii Ilaahay idmo dhulka abaar baa ka dhacday dadku wuu soo xirooday cidii xoolo caruur u diran jirtay way kaantay ardayda waqtiga abaaraha dhacay aawadeed haddaan feeding center dawladdu u samayn oo loo helin waxay noqonaysaa in caruurtii iska kala tagto marba ay dhan qabato waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa Muuse Biixi Cabdi ugu sareeyo madaxweynaha ka yahay inay horta feeding center nala doonaan oo maanta iskuulka loo qabto kelmadeedu aniga waxay tahay maadaama la magacaabay oo la shirkadii dhistay cid kamid kelmadeeda ka dhiibato wax kooban yaa lagu bilaabay wareegii labaad shirkadii Ganal Energy ee macdanta iyo tamarta la shaqeyn jirtay ayaa dhismaha buildingka taagan hadda aynu harsanayno ku kordhisay qayb kamid ah 30 mitir 3 qol oo kamida shirkadii baa dhistay qol kamidana shirkadda wadani baa dhistay oo anigu aan ka soo jeedo aad iyo aad ay mahadsan yihiin iskuulkan Cabdilaahi Cali dadkii u fikiray ama qabanqaabiyay ee dhisay hawshiisa lahaa waxaan kaloo halkan aad iyo aad uga mahadinayaa Nuux Maxamed Xuseen oo isna ah ragga aad iyo aad uga hawlgalay iskuulka maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa ballan qaaday inay gacan ka geysanayaan waxqabadka dugsigani waxaana hadaladoodii kamid ahaa lama kala tiro badna waa la kala baraka badan cidii maartay qurba jooga kale halkan wax ku darsatayba ammaan baa mudantii aniga iyo barasaabka iyo gudoomiyaha waan iska kaashano waraaqa qorno iskuulka feedha la sii waxoogaagii halkan ka ballan qaadna waa bixinayna iskuulkii dawli ma dhamaystirno waa aragnaa waan isleey mala waa inta anaga nagu maqan baa ka dhiman waan isleey waa bixinayna biidnillah waxa maanta sharaf weyn oo ah inaynu halkan ku furayno oo ku daahfurayno dugsiga Mujaahid Cabdilaahi Cali Suufi dadkii iskuulkan dhismihiisa ka qayb qaatay haday qurba joog tahay iyo haday qolqol joog tahay iyo dadkii ay fikradooda ka soo maaxatay waxay qabteen amal aad iyo aad u wanaagsan halka waxa laga dhawaajiyay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waagii uu musharaxa ahaa inuu ballan qaad idin sameeyay inagoo madaxweynaha ka wakiila
ballanqaadkii madaxweynuhu uu sameeyey sidiisii buu u fulayaa taa ku bishaaraysta annaguna waxaanu ka hawlgeli doonaa annagoo marka horeba intii aanu gobolka nimi si guud uga hawlgelaynay si gaarana waxaan idiin sheegayaa dugsiyada ugu horeeya ee guddoomiyuhu way maqlayaaye annagana waxaa naga ballana annagoo iskaashanayna inaan ka hawlgallo tay iskuulka siduu u heli lahaa fiidhin markaa waxay soomaalidu ku mahmahdaa amba faydniye waxba hay farin cabdiraxmaan rooble cabdilaahi cabdiraxmaan trike kalson TV burco